ka raadinaya nolol maalmeedkii cay iyo aflagaado iyo been abuur hablo hore badan baa la wadwaday miidiyaha oo adiga iyo inta noocaagaas hadda ilma xalaal ma odhan karee ma odhan karo waa ilma xalaal because qof hooyo dhasho gabadhi dhashay oo ilma xalaala halkaa intuu soo fadhiisto been abuur intuu sameeyo qof bini aadana ceebihiisa iyo propagandadiisa ma wadwado ma garatay manaan jeclayn inaan ka soo hadlo si kastoo u wada jireen ama aniga ay igala hadli jireen ama waxay doonaha soo qoraan kamaan jawaabi jirin laakiin waxaan caawa uga soo hadlay uga soo jawaabay Soomaalidu waxa la yidhi dhakaliyay leedo waxbay ku maqashaa qaar badan baa isirran doona wax xaqiiqo waa run waxaan ku leeyahay qalbigaad fakhri ka tay qalbigaad aad fakhri uga tay ilaahay arsaaq dhaanta beenaha adiga samaynaysa intaad halkaa kamarad hawl u gashay oo kamarada u soo qaadatay oo ummad dhan oo ku daawanaysa aad been u sheegayso isku qajil baan ka oran lahaa oo camal intan dhaama raxmaankan ku weydiinay ilaahay ha ku siiyo marka hore intaad isu hawlayso qof beenaad ka samaynayso oo leedahay war xaqiiqa kuwa dhageysanayana waxaan leeyahay ilaahay wax dhaama haydin siiyo intaad kaatibka halkaa soo fadhiistay aniga iyo hablo badan oo sharaf laba wax ka sheegaya adigana camal alla beenaha iyo wax la isooga dambeyn doono kaatibka halkaa soo fadhiistay aniga iyo hablo badan oo sharaf laba wax ka sheegaya adigana camal alla beenaha iyo wax la isooga dambeyn doono afkan aad buu u fududiyay markaad leedahay qof been abuur ka samaynaysa laakiin maalinu aad u cuslaan doono oo cadeymaheedana aad soo xambaarsanaan doontaan rajeynaya inaynu meel tan ka awood badan aynu ku kulanno